arrintii anfac waxa ka soo cusboonaaday in gabadhii ay wax u jili jirtay YouTube ka lahayd sagal caawa ay live soo furatay sheegtay arrintaas anfac inaysan bataatanba waxba ka jirin okay waxa ay teamka ka baxday Shambari ka hor ayadoo si sharaf leh markaasi u macasalaameysay oo tiri anigu waan tagayaa nabaday waxayna soo dhigtay page-keeda TikTok-ta yada iyo sawiradii groupkooda kulligood ay ku wada jiraan okay sagal waxay sheegtay anfac inay ku ogeyd inay u baxday tahriib aysan u bixin arimahan hadda socda ee social media sidoo kale sagal waxay sheegtay in timahan anfac ay iska xiirtay bil ka hor oo aysan hadda iska xiirnin ee xilligii rabadaanta bilowgeedii ay timaha iska xiirtay ana yaa summa wallahi waa taan diinta nabi maxamed ka baxa banaanka ka taga anfac ramadaan oo la gelin bay tinta iska xiirtay annagoo dhanna waa ognahay kooxdii ah sidoo kale sagal waxa ay sheegtay in ay hayso codad in anfac ay sheekada tan muddo ay maleegaysay wax beenana ay tahay okay qolka waan joogay inaan taga ayaan rabay weydiiyo su'aalo ku saabsan maadaama ay sagal tiri laba bari ka hor annaga ayay naga tagtay anfacna ay soo dhigtay qaybta TikTok-ta in Shambari ka hor ay kooxda macasalaameysay iyo in anfac aanan anigu ka maqal intii ay yani hadlaysay oo ah inay diyaarad ku baxday balse saga sheegtay in airport-ka iyo sheeko noocaas ka hadlaysay inaan laga bixi karin iyo hawlo noocaasa oo aan su'aalo ka weydiiyo oo iraado anfac may sheegin in airport-ka baxdo laakiin already waxaaba qolkii timi markaysan isoo qabanin anfac ayaa timid anfac ayaa ubax badan dirsatay dadkii baa yiri soo qabo waxay tiriyadii maaha way soo qabatay markay soo qabatay dood dheer ayaa dhex martay dooda dheer ee dhex martay waxa ugu horeeyay inta nuxurka ah أنا إلا طلعت إلهي أخبرنا إلهي أنا دجال لقى بدي عيني ما حيسوي بس محرمتي ودي بس مي ودي دجال لقى بدي وانت شيء والله سجلي حد ما وحربتا إنا تيكتوكي عاوز صوب سكرين ما كأني كفسنا سجلي ما سكت عارك كرتا إنه نكس أنا ينادر كذي بيجرسين هذا ما كده عارك كرتا ما أنت أورتي ذا فرصة سجلي إلهي ما كعسنين أجا هايا عضوك أجا هايا سجلي حتى تيكتوكي يا صديقة أوكي تيكتوكي عاوز صديقة يا فيديو نحكي ما فعل سبري هذيك sidoo kale sagal maadaama ay tiri codad ayaan ka hayaa codadkii anfac waxay tiri soo dhig adiga haysay wixii cadeema ah heesa soo dhig dadkan maqashii anaan leefa soo furana okay waan kaaga day qolkaaga doodaasi dheer kadib ee dhex mareysay sagal iyo anfac markii ay isku fahmi waayeen ila qayl ay noqotay anfac waxa ay tiri live-ka waan kaaga dagayaa qolkayga ayaan soo furanaya waa ay degtay qolkeeda ayay soo furatay anfac qolkeeda markay soo furatay iyadoo ooyeyso waxay soo bandhigtay waraaqihii dhakhtarka cadeynaya inay dhakhtar martay oo arinteeduna ay run tahay seriousna ay tahay sidoo kale maadaama sagal ku eedeysay in timaha ay mar hore xiirtay bil ka hor waxay sidoo kale madaxa ku qaawisay live-ka dhexdiisii qayb kamida oo ay tusisay yar markaasi daaqada saarnaa oo tiri anigu been ma sheegayo timahaygu stiil waa xiiran yihiin sidoo kale anfac waxa ay sheegtay in ay tiri sagal anu gabadh walaashay oo la shaqeynayay baa tahay ilaahay dartii baan kugu daayay haddii adiga lacag lagu soo siiyay sagal ayaa iyaduna waxay soo bandhigtay cod kamida codadkii ay sheegaysay oo ay tiri waan ka hayaa أنا لعقتها إقدرنا على ذا كو إتون كاسكونا $، هذا بري إيشوتين قبلينا وحرية الدوا وصينا على ذا ما فهمت ني إثيوبيا أنا كلنا على ذا ما فهمت إثيوبيا كلنا يا بدي برماشة هرتينس كلا دعانا شغلكم اللي على ذا ما فهمت أنا لعقتها سيقدرنا هدي لعقتها يسيقولين وني بتبالي ساعة لعقتها يسينين كل شيء لو شكستوا خانا على ذا مقفاني كعنتك قلنا يا ما فهمت codkaasi haddaadan weli fahmin sagal ayaa waxay tiri aniga tahriib ayaad iiga baxday oo de waa la ikufsaday iyo dhibaatadan aan social media ka wadid annagu maanan ogeyn laakiin annaga iyo tiimkaygu waxaan ogeyn in aad tahriib nooga baxday oo aad tahriibaysid codkani marka wuxuu weeye gabadhan oo nin magafaa u tilmaamaysa qaabkii iyo qorshihii iyo qaabkii ay ku bixi lahayd iyo qaabkii lacagta loo qaadan lahaa u tilmaamaysa inuu ehelkeeda u sheego inuu magafa yahay lacagtaana ay tahay khasab in uu bixiyo haddii kale gabadhiina sidaa iyo sidaa la yeelay waayahay cod kale ayay soo bandhigtay codka kale
maanan duubin way dhaafay dhanka kale Saudi oo ahayd tiimka sagal ka mid ahayd oo hadda ka hor ay isku dhaceen TikTok-tana arintoodu taalay ayaa iyaduna hadashay anfac walaashay waaye anfac dhiigayga waaye anfac meel baa laga urinayaa meesha anfac laga urinayaa dadoo way la fahanteen soo maaha waa fahmi kartii soo maaha Saudi haddaba hadalkeeda fahmin anaa ku bayaaninaya hadda ka hor waxa islaayay Saudi iyo sagal Saudina waxay ka mid ahayd tiimka sagal oo waxay ahayd dadkii wax la jiri jiray wax la duubi jiray YouTube-ka way isku dhaceen xaaladoodu way xumaateen kooxdan aad u jeedid hal wiil laga reebo intuba way ka baxeen kooxda sagal sidaa darteed waxay u tageen Daahir Cali Sow ayagoo dacwo ah arintooduna aad bay u daba dheeraatay kadibna waxa ay leedahay Saudi arintan waxay khusaysaa maadaama sagal iyo Daahir Cali Sow isku dhacsan yihiin sadarteed ayay gabadha tani arintaasi ay u soo dhex gashay sagal waa ra'yiga Saudi ee hadalka ula jeedo okay arintu markay halka marayso waa la isla waasho xaqiiqada Ilaahay baa og anigu waxba maanan arag waxaan arag halka gabadha lagu dulminayay waxaan arag halka gabadha lagu bahalkeynayay laakiin waxa social media hayimid ayaan u jeednaa marka qofku indhihiisa wax ku arko anu markaan waxa indhahayo ku arko ayaan dhihi karaa qofkaasi iyo qofkaasi waa la dulmiyay waa loo khalday sida dhibaato loo geystay sidaas lagu sameeyay laakiin xaqiiqada jirta way iska soo bixi doontaa sababtoo ah maba dheeraataba waxa social media laga sameeyaa ma dheeraadaan